shiinaha ayaa fariin adag u diray dalka Mareykanka kadib markii madaxweynaha dalkaasi shiinaha uu si adag uga hadlay damaca gowracan ee dalalka reer galbeedka ee ay ku doonayaan in maamulka dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamkaba ay gacanta markaasi ku dhigaan balse madaxweynaha shiinaha ayaa isagoo garab taagan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in arintaasi si adag ay uga hor imaan doonaan misna ay ka dagaalami doonaan in maamulka dunida hal qolo ama hal qubad gacanta u gasha warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa maxay tahay sababta hadda shiinaha iyadoo la og yahay in isbuuc ka hor uu markaasi la kulmay madaxweynaha Mareykanka oo uu booqday shiinaha hadda uu uga hadlayo arintaasi ma kulankoodii ayaa waxa uu ku dhamaaday khilaaf mise waxa arintan lagu qancinayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maadaama uu ku sugan yahay dalka shiinaha waxaan ahay Adfitaax Durdur halka naga daawanaysan waa Durdur TV hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir hadii aad hore inala joogtay waan kaaga mahadcelinaynaa aragtidaada waa inoo muhiim halka hoose ee faalada inoogu reeb mahadsanid madaxweynaha dalka shiinaha ayaa sheegay in dunida ay maanta ku jirto marxalad adag oo sii kordhayaan khataraha amni loolanka quwadaha waaweyn iyo isku dayada lagu doonayo in hal dhinac uu si gaar ah u maamulo siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan jeediyay xilli uu dhinac taagnaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuuna yiri dunidu maanta waxay noqotay meel aan ammaan ahayn waxaana jira isku dayo lagu doonayo hal dhinac inuu kaligiis dunida maamulo hadalkan madaxweynaha shiinaha ayaa si weyn u soo jiitay indhaha caalamka waxaana loo fasirtay fariin culus oo ku wajahan reer galbeedka gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ama dawladda Mareykanka oo shiinaha iyo Ruushka ay ku eedeeyaan in ay doonayaan inay sii haystaan hoggaanka siyaasadeed military iyo dhaqaalaha dunida madaxweynaha shiinaha ayaa sheegay in xaaladda caalamka ay maanta ka duwan tahay sidii hore isagoo tilmaamay in dagaalo cunaqabatayn dhaqaale xasarad siyaasadeed iyo tartan tiknoolajiyadeed ay abuureen jawi cusub oo aan xasiloonayn wuxuuna carabka ku dhuftay in dalalka waaweyn looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan wada shaqayn iyo is-ixtiraam halka ay ku tartami lahaayeen awood iyo gacan sarayn madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in Beijing ay si adag uga soo horjeedo wax uu ugu yeeray siyaasad xoog ku dhisan isagoo tilmaamay in dunidu aysan u baahnayn nidaam hal dawlad si gaar ah u go'aamiso masiirka caalamka madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in Beijing ay si adag uga soo horjeedo wax uu ugu yeeray siyaasad ku dhisan xoog isagoona tilmaamay in dunidu aysan u baahnayn nidaam ay hal dawlad si gaar ah u go'aamiso masiirka caalamka wuxuuna ku baaqay in la dhiso nidaam caalami ah oo awoodda lagu wadaago isla markaana dalalka yaryar iyo kuwa soo koraya ay helaan cod iyo saameyn la mid ah tan quwadaha waaweyn dhankiisa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo dhinac taagnaa madaxweynaha shiinaha markuu hadalkan sheegayay ayaa si buuxda u taageeray hadalka Xi Jinping isagoo sheegay in xiriirka Moscow iyo Beijing uu yahay mid sii xoogaysanaya sanadaha dambe Putin ayaa wuxuu sheegay in labada dal ay si wada jir ah uga shaqeyn doonaan sidii loo abuuri lahaa duniyo badan oo awoodda ku kala qaybsan tahay taas oo uu ku tilmaamay nidaam cadaalad badan leh Putin ayaa sidoo kale xusay in Ruushka iyo Shiinaha ay yeesheen iskaashi ballaaran oo dhinacyada militariga dhaqaalaha tamarta iyo tiknoolajiyadda ah wuxuuna sheegay in labada dawladood ay doonayaan inay iska kaashadaan si ay uga hortagi lahaayeen waxa ay ugu yeereen fargelinta iyo cadaadiska reer galbeedka kulanka labada hogaamiye ayaa ku soo aaday xilli uu cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeya Ruushka iyo dalalka NATO kadib dagaalkii Ukraine Ruushka ayaa wajahay cunaqabatayn culus oo kaga timid Mareykanka iyo midowga Yurub halka Shiinaha uu isna wajahayo cadaadis la xiriira arrimaha Taiwan tartanka dhaqaalaha iyo xanibaadaha tiknoolajiyadda ee Washington Shiinaha iyo Ruushka ayaa muddooyinkii dambe sii xoojinayay xiriirkooda siyaasadeed iyo dhaqaale iyagoo si wada jir ah uga hortagaya saameynta reer galbeedka Beijing iyo Moscow waxay sidoo kale xiriir dhow la sameeyeen dalal badan oo Aasiya Afrika iyo Latin America ah si ay u helaan xulufo cusub oo taageero aragtidooda ku saleysan nidaam cusub oo dunida qaata falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in hadalka madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu muujinayo sida Shiinaha uu isu arko
in uu yahay quwad si toos ah ula tartami karta Mareykanka, waxaana sidoo kale ay tilmaameen falanqeeyaasha in Beijing iyo Moscow ay doonayaan inay dhisaan isbahaysi awood leh oo bedeli kara qaabka dunida ee loo maamuli jiray tobanaangii sano ee lasoo dhaafay. Khudbadda madaxweynaha Shiinaha ee Xi Jinping ayaa ku soo aadaysa xilli ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo in dunidu ay gasho marxalad cusub oo dagaal qabow ah, iyadoo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan saameynta siyaasadda, dhaqaalaha iyo militariga. Arrintan ayaana cabsi gelisay dalal badan oo ka baqaya in khilaafka u dhexeeya quwadaha waaweyn ay saameyn ku yeeshaan amniga iyo xasiloonida caalamka. Toddobaadyo uun ka hor bay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu booqday dalka Shiinaha, xilligaasi oo uu sheegay in madaxweynaha dalka Shiinaha iyo isaga ay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira dhaqaalaha, militariga iyo tiknoolajiyadda iyo waliba siyaasadda caalamka. Wuxuuna tilmaamay xilligaasi Trump in wadahadalladaasi ay ku soo dhammaadeen jawi nabdoon, isfahan iyo wada shaqayn. balse hadalka hadda ka soo yeeray madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa waxa uu cadeynayaa in isfahanka u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha uu yahay mid aan xasilooneyn, hadba marba laga filan karo xaaladda markaasi ee ku sugan inuu isbedbedelo. balse hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Shiinaha ayaa waxa uu cadeynayaa in iskaashiga iyo wada hadallada iyo xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha inuusan ahayn mid wanaagsan, xilli la filayay in wada hadalkaasi iyo waliba Trump hadalka uu sheegay in Shiinaha uu ka dhabayn doono khilaafka iyo waliba isfahan waaga ka dhex jira Mareykanka iyo Shiinahana halkaasi uu ku soo yaraan doono. balse su'aasha la isweydiinaya ayaa waxay tahay hadalkan hadda ka soo yeeray madaxweynaha Shiinaha ma wuxuu ula gol leeyahay amaba uu ku qancinayaa saaxiibkiisa Putin oo dhinac taagnaa, mise waa ka runo ma jirto wax la yiraahdo xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka. aduu sidee ayaad u aragtaa?